أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشركeen maanta wuxuu ku saabsan yahay nadiifin diyaarad oo ay ku dhacday qiso aad u xanuun badan. Saad qisadda noola fahanta ku soo dhawow cashirka. Sidoo kale cashirka qaybtiisa ugu dambeyso waxaan ku xusnay dulucda sheekada ay leedahay. Marka waxaan bilaabaynaa cashirkeena. Ciwaanka cashirku wuxuu leeyahay Amazing History About Airplane Cleaner. Amazing History, sheeko la yaab leh about ku saabsan Airplane Cleaner, nadiifin diyaarad. Airplane cleaner, nadiifin diyaarad, was cleaning ayaa nadiifinayay the pilot cockpit. Yani shirka diyaaradda waa meesha pilotka laga biibi diyaaradda. Shirka diyaaradda ayuu nadiifinayay. When goortii he saw uu arkay a book lethal, book ciwaankiisu uu yahay how to fly, sida loo duuliyaa an airplane diyaaradda. For beginners, dadka bilowga ah. Yani book ciwaankiisu wuxuu ahaa sida ay u duuliyaan diyaaradda dadka bilowga ah. Volume 1, qaybta koowaad. He opened it, ayuu furay the first page kugu horeeyay, which says, kaasoo dhahayay to start, sa u bilowdo the engine, motorka. To start, sa u bilowdo the engine, motorka. Press riix the red button, yani buttonka gaduudan riix. It so sidii ayuuna sameeyay, and the airplane engine, motorkii diyaaraddana started wuu bilaaway mise wuu kacay. He was happy, wuu ku faraxsanaa. And opened, wuxuuna furay the next page-ka xiga to get the airplane moving, sad uu ogolaato diyaaradda inay dhaqaaqdo. Press riix the blue button, yani buttonka buluugan riix. He did so sidii ayuu sameeyay, and the plane, diyaaraddina started, waxay bilowday moving, dhaqaaqaasoo at an amazing speed, dhaqaaqaasoo ku socday xawaaro la yaab leh mise xawaaro sare. He wanted, wuxuu doonayay fly, inuu kiciyo. Sidaas darteed he opened, wuxuu furay the third page-ka saddexaad, which said, page-kaasoo dhahayay mise kaasoo dhahayay to let the airplane, sad uu ogolaato diyaaradda fly, inay kacdo. Please, fadlan, press riix the green button, buttonka cagaaran. He did so sidii ayuu sameeyay, and the plane, diyaaraddiina started, waxay bilowday to fly, inay duusho. He was excited, wuu ku farxay. After 20 minutes of flying, 20 daqiiqo oo duulimaad ah, he was satisfied, wuu ku qancay. And wanted, wuxuuna doonayay to land, inuu cagadajiyo. Yani ereyga land waa cagadajin. Land dhul uu noqdaa marka qaarkood, laakiin sad waxaa joognaa dhanka diyaaradda. Yani hadda wuxuu erey u taagan yahay cagadajin. Unwanted, wuxuuna doonayay to land, inuu cagadajiyo. So sidaas darteed he decided, wuxuu go'aansaday to go, inuu aado the fourth page, yani page-ka afraad inuu aado. Page 4na says, wuxuu leeyahay to be able, sid uu awoodo to know, inaa ogaato how to land, sida loo cagadajiyo a plane, diyaaradda. Please, fadlan, purchase, soo iibso Volume 2, qaybta labaad ka soo iibso to at the nearest bookshop, yani dukaanka kugu dhow. Yani ka soo iibso Volume 2-ga dukaanka kugu dhow, page-ka afraad, si aad diyaaradda u soo cagadajiso. Yani waa sheeko aad iyo aad u qalayaab badan. Moral of the history, yani dulucda sheekada. Yani sheekada aan maanta dhan ka sheekeynaynin, dulucdeeda, yani dareenkeeda iyo soo gaabinteeda iyo dhammaan waxay ku saabsan tahay iyadoo lasoo koobay oo lasoo khulaaseeyay. Yani waxay leedahay never again be, marnaba ha isku dayin anything wax without complete information, la'aanta waxaan dhammaystirin akhbaartooda. And always, had iyo jeerna, make sure you waxaad hubisaa have an exit plan, inaad haysato qorshe ka bixitaan before go all in, ka hor intaadan gelin wax walba. Ka fiirso intaadan gelin wax walba ka hor, si yani aad ugu badbaado khataraha yani ka dhalan kara wax walba. Soo sheekadeena halkaas ayay ku soo koobanayna.
waxaan leenahay markaa subscribe-ta, like-ta, share-ka nagu dhiirigeliya. Waxay noo tahay anagana hadaf iyo horusocod. Sidoo kale gambaleelkan u furo si aad mar walba ula socoto casharrada maalinlaha soo gelina halkan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.